Baba Vanga waa saaxiradda ugu weyn ee loogu dhageysiga badan yahay dunida. Wax badan oo ishaarooyinkeeda ka mid ah waxay noqdeen kuwo run ah. Soo bixidda cudurka coronavirus waxaa dib loo xusuustay hadallada Baba Vanga. Saaxiradda Baba Vanga waxay sheegtay sanadkan 2020 waxyaabo walwal badan iyo cabsi leh inay dhici doonaan. Baba Vanga waxay horay u sheegtay madaxweynaha 44aad ee USA inuu noqon doono qof madow ah oo Afrika ka soo jeeda, kaasoo ahaa Barack Obama. Sidoo kale waxay horay u sheegtay weerarka daaraha mataanaha ee Mareykanka. Waxaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah hadallada naxdinta leh ee sanadkan 2020 ay sheegtay Baba Vanga. Sanadkani Baba Vanga waxay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump cudur aan la aqoon inuu dhagaha tiri doono, kadibna madaxa nabar uga soo bixi doono, ugu dambeynna Donald Trump sidaasi inuu u dhiman doono ayay saadaalisay. Sidoo kale waxay sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu shirqool u maleegi doono mid ka mid ah ilaaladiisa, balse waxay raacisay in lagu guuleysan doono ama lagu guuldareysan doono ma ogi. Baba Vanga waa qof indhool ah oo aan waxba arag balse saadaalisa waxyaabaha mustaqbalka dhici doona. Saaxiradda Baba Vanga dhaqamadeeda waxaa ka mid ah sida la sheegay inay daaqadaha agtooda ay seexato isla markaana ay furto daaqadaha saacadaha dambe ee habeenkii. Waxa ayna sheegi jirtay in macluumaad ay ka qaadato ruuxaan iyo waxyaabo aan la aqoon. Baba Vanga waxay sheegtay in sanadaha soo socda dhulgariirkii tsunamiga 2004 mid ka daran ay dhici doonto, gaar ahaanna wadamo badan oo ka mid ah qaaradda Asia noloshooda ay soo cirib tirmi doonto sida India, Malaysia iyo qaybo badan oo ka mid ah Asia. Waxay sidoo kale sheegtay in midowga Yurub gabi ahaan uu burburi doono, khaasatan burbur dhaqaale inuu ku bilaaban doono. Sanadka 2043 waxaa xukunka adduunka la wareegi doona muslimiinta sida ay sheegtay Baba Vanga, waxaana gabi ahaan taajir noqon doono dalalka Islaamka ah. Waxay kaloo sheegtay dadka dunida markii ay soo yaraadaan inay dunidan ku noolaan doonaan dad isjecel. Duniduna hal caasimad ayay yeelan doontaa. Caasimadda duniduna waxay noqon doontaa magaalo Ruushka ku taala, waxaana hoggaanka qaban doona qof wajigiisa iftiimaya oo wax badan og. Sidoo kale Baba Vanga waxay sheegtay in Shiinuhu uu noqon doono waddanka kaliya ee ugu quwadda weyn adduunka. Macluumaadka Baba Vanga ay sheegtay waxay kala yihiin sida tan: sanadka 2023 qadka dunida ay ku wareegto isbeddel ayaa ku imaan doona. Sanadka 2026 wixii ka dambeeya dadka Yurub hoos u dhac weyn ayaa ku imaan doona. Sanadka 2028 waxaa meerayaha Venus loo diri doonaa markab bani aadan uu saaran yahay. Sanadka 2043 dhaqaalaha dunida aad ayuu u fiicnaan doonaa, muslimiintana Yurub ayay maamuli doonaan. Sanadka 2046 waxaa la sameyn doonaa xubno gacan ku samays ah oo xubnaha xanuunsada si fudud loogu bedeli doono. Sanadka 2081 waxaa la arki doonaa cudur si degdeg ah daqiiqado gudahooda dadka waayeel uga dhigi doona. Sanadka 2100 waxaa la sameyn doonaa energy source cadceed cusub. Sanadka 2123 wadamada yaryar ee adduunka ayaa isdagaali doona, ayadoo wadamada waaweynka kor ay ka daawan doonaan. Sanadka 2170 waxaa dhici doonta abaar weligeed aanan la arag. Sanadka 2183 meerayaha Mars wuxuu noqon doonaa awood ka madax bannaan dunida. Sanadka 2196 waxaa isku qasmi doona Yurubiyaanka iyo Eeshiyaanka. Sanadka 2256 markab isbeyska ka imaanaya ayaa dunida wuxuu keeni doonaa cudur aanan weli la arag. Sanadka 3797 dunida ayaa burburi doonta sida ay sheegtay Baba Vanga. Sanadka 5000 iyo xoogaa markuu marayo waxay qabtaa Baba Vanga in koonka oo dhan uu burburi doono. Baba Vanga asal ahaan waxay ka soo jeedaa Bulgaria, ayadoo 13 jir ah oo webi agtiisa maraysa ayaa waxaa la sheegaa inay wajiga ooga dhacday biriqda cirka. Sidoo kale Baba Vanga waxaa la soo qaaday ayadoo suuxsan, sidaasna waxay ku noqotay qof indhoole ah.
dadkuse waxay sheegaan inay awoodo qaas ah lahayd oo ay saadaalin jirtay waxyaabaha dhici doona. si kasta oo ay ahaataba diintu waxay sheegtay sixirka inuu jiro, balse cilmul ghaybka cidna ma ogaan karto qof uu Ilaahay ogeysiiyey mooye. waxayna diinta naga mamnuucaysaa inaan rumaysano hadallada kaahiniinta ama saaxiriinta. si kastoy ahaataba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbiyey inaad ogaataan akhbaaraadka caalamka iyo waxyaabaha dunida ka jira. diin ahaanna ma bannaana rumaynta saaxiriinta. muuqaalkan haddii aad ka heshay, fadlan subscribe saar channelka Cabdiqani Axmed, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada xiga. mahadsanidin. wassalaamu calaykum.